gugii sanadkii 1889 waxaa dhashay nin sabab u noqon doona dhimashada milyan qof. halkan ayuu ku dhashay oo magaalo Austria ku taala oo u dhow xadka Jarmalka iyo Austria lana dhaho Brunn am Inn. qoys diinta masiixiga haysta ayuu ka dhashay. durba Hitler wuxuu noloshiisa ku bilaabay niyad jab iyo naxari kadib markii ay dhinteen 3 wiil oo walaalihiisa iyo gabar walaashiisa oo isaga aad uga yaraa. Hitler aabihiisa oo lagu magacaabi jiray Alois ayaa isaguna ahaa nin aad u halaagan, dib badan oo usha irbaaxada iyo waliba laynta ka deen wiilkiisa. Hitler aabihiis wuxuu ku dhashay sharci darro, yacni wuxuu ahaa wacal. hooyadiis iyada oo aan guursanayay uur qaaday waxayna dhashay Alois oo noqon doona aabbaha dhalay Hitler. jirdilka joogtada Hitler wuxuu u geystay dhibaato maskaxiyan ah. waxaa la sheegay in Hitler oo aad u yar uu habeen kasta garaaci jiray aabihiis. hooyada Hitler oo aad u jeclayd wiilkeeda ayaa marmarka qaar dhabarka u dhigan jirtay usha iyo sariigadaha kulul ee lala dhacayo wiilkeeda yar. naxariis darradaas isaga oo yar la tusay waxay Hitler ka dhigtay mid aan naxariisan oo beerku madow yahay. jirdilka iyo nolosha silaca ayaa bartay inuu noqdo iskoris aaminsan halaaga iyo dhibaatadu inay qayb ka yihiin horumarinta iyo waliba xaqiijinta awood nafsaani ah. 1903 waxaa dhintay Hitler aabihiis. Hitler xilligaasi iskool ayuu bilaabay, waana halka ay ka bilaabatay aragtida Hitler ee salka iyo baarka ku haysay Greater German ama samaynta Jarmal weyn iyo aaminaadda in Austria iyo Jarmalku ay noqdaan hal dal oo midaysan. sanado kadib iskoolka wuu ka haray, wuxuuna go'aansaday inuu noqdo farshaxaniiste xirfad leh oo wax sawira. balse nasiib darro waxaa qalbigiisa sidii gantaalka u gelgelay diidmadii uu macadka farshaxanka ee Vienna diiday una sheegay inuusan aqoon xirfadda sawirka. niyad jabkaas waxaa u xigtay dhimashada hooyadiis Clara oo kansar u dhimatay. dhimashada hooyadiis waxay ku noqotay hug boga kaga taalla maadaama uu cidloon doono rajinimada uu ku dhammaysan doono noloshiisa. mar labaad ayuu dib ugu laabtay macadkii farshaxanka, balse markaan waa la diiday. waliba waxay ahayd fursaddiisii ugu dambeysay ee uu ku geli lahaa macadka. Hitler wuxuu waayay meel uu hoy ka dhigto, yacni guri uu dego, wuxuuna ugu dambeyntii degay hoy loogu talagalay dadka darbijiifka ah. halkan waa meel uu wax badan ka baran doono, maxaa yeelay si daran ayaa hoygaas loogu dhex diri jiray, waxaana sii korortay cadaawaddii iyo xaasidnimadii ay noloshu bartay. wuxuu buuggiisa Mein Kampf ku yidhi, xilligaas waxa uu iga dhigay mid adag, welina waan awoodaa ahaanshaha mid adag. si uu nolol maalmeed u helo wuxuu bilaabay inuu iibiyo sawirro uu isagu sawiray. sidoo kale wuxuu noqday in aad wax u akhriya. sidoo kale wuxuu bilaabay in siyaasadda uu ildhow kula socdo. aad ayuu u dhacbaa ugana soo horjeeday nidaamkii shuuciyadda, gaar ahaan wuxuu aad ula yaabay sida ay u adeegsan jireen galmoodfallada, qaharka iyo laynta si ay siyaasadahooda u meelmariyaan. taas ayaa dhiirigelisay, wuxuuna yidhi waxaan fahmay muhiimadda jirdilka iyo qahar. Vienna isaga oo ku nool ayay indhihiisu yuhuudda aad ugu bateen. 175,000 oo yuhuuda ayaa xilligaas ku noolaa Vienna. wuxuu bilaabay inuu karhado, waliba uu nacayb xaddaaf ah u qaado. wuxuu buuggiisa ku leeyahay, meel walba oon tago waxaan isha ku dhifanayay oo arkayay yuhuud. mar walba oon arkona waxay indhahayga ka tirtirayeen bini'aadantinimada aan yuhuudda u hayay. waxaan isu rogay inaan noqdo mid yuhuudda dunida ugu nacab. wuxuu mar kale leeyahay, Vienna waxay qalbigayga kaga tagtay arrimo badan. waxay ii ahayd iskuul aan ka bartay ideolojiyad ama aragti siyaasadeed oo aan abid iga harin. isaga oo yuhuudda nacaybkaas u qaba ayaa waxaa bishii August 1914 la yeeriyey firimbigii dagaalka. waa bilowgii dagaalkii koowaad ee dunida. Hitler safka hore ayuu galay,
isagoo aad u faraxsan. farxaddiisuna waxay daaranayd wuxuu aaminsanaa in Jarmalku guul weyn gaari karo. furinta hore ayuu ka noqday fariin qaade gacan fudud. xaqiiqatan shaqo fudud ma ahan inaad furinta hore macluumaadka iyo khabaarka geysid. wax kastana waad filan kartaa dhimasho iyo dhaawacba. Hitler oo ahaa geesi ayaa sanadkii ugu horreeyay ee dagaalka waxaa lagu abaalmariyay biladda geesinimada ee loo yaqaano birta cas, Coveted Iron Cross. 2 jeer ayuu dhaawacmay. mar wuxuu ku indhabeelay dagaalkii Ypres kadib markii Ingiriisku chemical gas u adeegsaday, balse bilo kadib ayuu araggiisu dib ugu soo noqday. wuxuu durba aaminay inuu yahay ninka kaliya ee Jarmalka mar kale awoodiisa soo celin kara. isagu ragga kale la mid maahan. wax walba madow ayay indhahayga la noqdeen. markii aan maqlay Jarmalka waa guul daraystay, waxaa ii raacay habeenno daran oo aan laba indhood isu keenin. nacayb ayaa qalbigayga isku duubay, ayuu Hitler yidhi. wuxuu naftiisa ballan ka qaaday inuusan cafin doonin kuwii mas-uulka ka ahaa in Jarmalku guul daraysto. Hitler wuxuu aaminsanaa in dagaalka uu dalkiisu ku guul daraystay ay ka dambeeyeen islamarkaana ay sababteeda lahaayeen siyaasiyiin midigta fog ah, kuwaasi oo ula jeeday Yuhuudda oo bangiyada iyo hanaanka maaliyadeed ee dalka aad u xukumi jiray. isaga oo fikirkiisa xambaarsan ayuu ku biiray xisbi la oran jiray shaqaalaha Jarmalka, German Workers' Party. waxay lahaayeen taageerayaal aad u fara badan, balse mana aysan lahayn taageerayaal la tartami kara xisbiyada kaleeto. waxay shirar ku qabsan jireen hoolalka khamriga lagu cabo. markaas waxay Hitler ka dhigteen ninka u qaabilsan barabagaanada iyo weliba madaxa hogaaminaya xisbiga. isla sanad gudihii wuxuu xisbigii isu bedelay waxa haatan loo yaqaano Nazi Party, waa xisbiga naasiga Jarmalka. waxaa bilowday hirarka awoodda xisbiga naasiga Jarmalka. Adolf Hitlerna hadda waa hogaamiyaha xisbiga, waa awood shucaaceedu soo bigleeyahay. haatan Julaay 28, 1921 wuxuu bilaabay xiisado iyo casharro Vienna uu ka soo bartay inuu si toos ah u dhaqangeliyo, taasoo salka ku haysay gaboodfalladu waa faa'iido. wuxuu aasaasay xubno awood badan oo sidiisa oo kale askar hore iyo jenaraallo iyo weliba korneello isugu jira. wuxuuna ugu magac daray shaatiyo baroonayaasha ama brown shirts. waxay bilaabeen inay ku kacaan falal jirdil iyo xitaa dil ah. hadda hogaamiyaha naasiga waa Hitler wuxuu aaminsan yahay in falsafadda ku dhisan khasab, qahar iyo gaboodfal ay tahay midda keliya ee awood iyo xukun u horseedi kadha. wuxuu sii watay qorshayaashiisii. 1923 wuxuu uurka ka soo jaray oo go'aansaday inuu talada dalka ka faramaroojiyo dowladdii xilligaas. bishii Noofembar sanadkii 1923 isaga oo ay galbinayaan 600 oo shaatiyo brown ah ayuu weerar ku harqiyay hool qamriga lagu cabo, halkaasoo uu ra'iisul wasaarihii dalku ku sugnaa, Gustav von Kahr. kolkii uu gudaha hoolka u soo galay ayuu xabad kor u riday, wuxuuna ku dhawaaqay kacaan. intaas kadibna wuxuu aaday Munich si uu dalka guud ahaanba u qabsado. booliska oo heegan ku jiray ayaa sababtay in kooxdii Hitler iyo boolisku ay israsaaseeyaan. dagaalkii dhex maray booliska iyo kooxdii naasiga ayaa waxaa ku dhintay 14 naasi ah oo Hitler la socday. koox kale ayaa dhaawacantay, balse Hitler waa baxsaday, waxaana hal bacaad lagu lisan noqotay hadafkii Hitler. 3 beri kadib Hitler waa la xiray, waxaana lagu xukumay 5 sano oo xarig ah. waxay u muuqatay inuu dhammaaday hankii Hitler. xabsigu wuxuu u noqday meel uu afkaartiisa xaqjirka ahayd ugu bedelo riyo iyo weliba mid uu ku fuliyo.
waa halka ay ka bilaabatay sheekada buuggiisa caanka ah ee Mein Kampf My Struggle oo Soomaali ahaan ku noqonaysa rafaadkaygii ama silcaygii. wuxuu aaminay in dadka Jarmalka ahi ay yihiin aadane gaar ah, isaga oo aaminsanaa in yuhuuddii Jarmalku aysan ahayn Jarmal. wuxuu yidhi dabeecaddu ma taqaan xuduud siyaasadeed, waxay dunida keentay noole, dabadeed waxay daawataa ciyaarta awoodaha. kan awoodda lihi waa inuu xukumaa kan aan awoodda lahayn ee ka tanaasulay awooddiisa. wuxuu doonayay in dadka indhaha buluugan, dhaadheer, caddaanka ee reer Jarmal ay noqdaan kuwa Jarmalka iska leh, halka kuwa kalena uu aaminsanaa inay cagta ka hooseeyaan. yuhuudduna waxay ku jiraan kuwa cagta ka hooseynaya. wuxuuna ugu yeeri jiray kansar cunaya dadka asalka ah ee reer Jarmal. wuxuu yuhuudda u aqoonsaday inay yihiin dadka hoosta u dhigaya Jarmalka, islamarkaana cadow ku ah Jarmalka. xitaa markii uu 20 jirka ahaa wuxuu qori jiray rabitaankiisa ku aadan ka tirtiridda yuhuudda khariidadda adduunka. wuxuu aaminsanaa in dib loo soo celiyo dhulkii Jarmalka ka maqnaa iyo in la dhiso ciidan awood badan oo aad u xooggan. Diseembar 20 1924 markii xabsiga laga sii daayay, wuxuu fikirkiisa siyaasiga ahaa ku daray arrin kale oo la yaab leh. wuxuu sheegay inuu yahay Masiix. 1926 saaxiibkiis ayuu u sheegay inuu yahay awood aan caadi ahayn, uuna doonayo inuu dhammaystiro hawl uu Nabi Ciise fulin waayay oo qabyo ah. subxaan allah. xitaa wuxuu sheegay in awood xagga sare uga timid, islamarkaana yahay mid la doortay. joog isaga oo keliya awooddaas ma aaminsanayn, balse waxaa aaminay dad aad u fara badan. waxaa soo baxday fursad uu Hitler dalka ku qabsan karo. waxaa 1929 bilowday jahwareerkii dhaqaale ee weynaa, The Great Depression, markaas oo ay 6 milyan oo Jarmal ah shaqo la'aan noqdeen, taasoo aad loogu dhaliilay xukuumaddii xilligaas talinaysay. taasi ayaa dhabaha u xaartay in Hitler uu barbagaandadiisa xarkaha ka furo. 1933 xisbigii Naasigu wuxuu noqday kan ugu awoodda badan Jarmalka. taas ayaa sababtay in Hitler uu ku soo baxo doorashada. hagaag iminka wuxuu yimi meel uu muddo ku haminayay, inkastoo uu qaab dimuqraadiyada ku yimi. waa hogaamiyaha Jarmalka haatan. isaga ayaa haatan go'aaminaya cidda daaqaysa iyo cidda laga warfinayo dunida ee la dilayo. wuxuu bilaabay inuu nadiifiyo dalka oo uu kaliya ku soo reebo dadka Aryaaniska ah, kuwaasoo u yaqaana inay yihiin dadka Jarmalka asalka ah. 1933 wuxuu bilaabay arrin la yaab leh. weligaa ma aragtay wan ama awr la tumayo oo xiniyaha laga saarayo? Hitler wuxuu bilaabay inuu tumo sterilization ku sameeyo 400,000 oo qof si aysan wax ubada u dhalin. sababtuna waxay ahayd wuxuu u arkayay inay ahaayeen dad aan asal ahaan Jarmal ahayn oo yuhuud iyo isra kale ah. 4,000 oo shuuciyad aaminsanaa ayuu jir dilay. wuxuuna sheegay in xisbiga keliya ee Jarmalka laga ogol yahay uu yahay xisbiga Naaziga. Hitler wuxuu lahaa saaxiib la oran jiray Ernst Röhm, wuxuuna ahaa ninka keliya ee uu u ogolaa inuu Hitler ugu yeero magaciisa Hitler. dadka kale oo dhan waxay ugu yeeri jireen Führer, oo macnaheedu tahay hogaamiye. Adolf Hitler wuxuu qooshay dhagar weyn. wuxuu isugu yeeray qaar fara badan oo ka mid ah shaatiyo brownyaashii, wuxuuna u sheegay inay yimaadaan howl khamriga lagu cabo. halkaas markii uu yimi, wuxuu habeenkii u tegay saaxiibkiis Ernst Röhm, wuxuuna ku yiri, Röhm saaxiib waad xiran tahay, maxaa yeelay khiyaano ayaad waday. wuxuuna isla habeenkii xiray 200 oo ilaaladiisa ka mid ah. qaar fara badan ayuu laayay. dadka la laayay waxaa ka mid ahaa Ernst Röhm oo ahaa saaxiibkii khaaska ahaa ee Hitler. wuxuu laayay baadariyo fara badan. cadowgiisii siyaasadda ayuu xabad uga takhallusay. dadka uu laayay waxaa ka mid ahaa hogaamiyihii hore ee Jarmalka Kurt von Schleicher oo gurigiisa uu ku dilay.
markii uu intaas sameeyey wuxuu kabaha u iladay fulinta ballan uu naftiisa horey uga qaaday kaas oo ahaa ciribtirka yuhuudda. wuxuuna ku bilaabay in sanadkii 1935 uu soo saaray sharci mamnuucaya in dadka Jarmalka ah iyo yuhuuddu ay isguursadaan. wuxuu sidoo kale yuhuudda ka xayuubiyey muwaadinimadoodii iyo xuquuqdoodii aasaasiga ahayd. waxaa yuhuudda lagu khasbay inay xirtaan oo qoorta gashtaan calaamadii caanka ahayd ee la oran jiray calaamadda huruudda, the yellow button, taasoo looga dan lahaa in lagu aqoonsado yuhuudda. sidoo kale askarta naasiga ayaa hor istaagi jiray dukaamada yuhuudda iyaga oo oranaya waxba ha ka iibsanina yuhuudda. Hitler horey ayuu u sii watay qorshihiisa, wuxuuna bilaabay tirtiridda yuhuudda. wejiga labaad ee tirtiridda yuhuudda. dabadeed waxaa xigay habeenkii caanka ahaa ee loogu magac daray habeenkii galaas jabinta, the night of breaking glass. habeenkaas waxay naasigu laayeen yuhuud fara badan, waxayna dumiyeen ilaa 7,000 oo ganacsi oo ay yuhuuddu lahaayeen. wuxuu markaan Hitler u soo jeestay inuu dhiso ciidan adag, maxaa yeelay cahdiyadii iyo heshiisyadii dagaalkii koowaad ee dunida ayaa Jarmalka ciidankooda ku xadidayay kaliya 100,000 oo askari. balse sida uu Hitler ka ballan qaaday naftiisa ee uu ku qoray buuggiisa waa in uu ciidan xooggan dhisto. waxa uu markii ugu horreysay ciidankiisa u diray Rhineland oo ah dhul Jarmalka ka mid ahayd ka hor dagaalkii koowaad ee dunida. balse sida uu Hitler buuggiisa ku qortay waa in uu soo cesho dhulkaas. 2 sano kadib wuxuu ku duulay Austria isaga oo fulinaya rabitaankiisii xilligii uu yaraa, kaasi oo ahaa mideynta Austria iyo Jarmalka. 1 sano kadib wuxuu u ruqaansaday Czechoslovakia isaga oo qayb ka mid ah qabsaday maadaama ay dad Jarmal ahi deganaayeen. waxyar kadibna guud ahaanba waa la wareegay. Faransiiska iyo Ingiriisku waa ka aamuseen, waxayna sheegeen in ay dagaalka geli doonaan marka uu Poland weeraro. 1 Sebteembar 1939 Hitler wuxuu weeraray Poland, waana halka uu dagaalkii labaad ee dunida ka bilowday. haatan waxaa si toosa u bilowday dagaalkii labaad ee dunida. 10,000 oo reer Poland ayuu Hitler seefta barshay. 6 usbuuc gudahoodna wuxuu dhulka la simay Poland. 2 milyan oo yuhuuda ayaa gacanta Hitler u galay, kuwaas oo sugaya in go'aan laga gaaro inay sii noolaadaan iyo in kale. buugga 1940 waxaa isdhiibay Denmark. bishii May ilaa Julayna taangiyada Hitler waxay dusha ka mareen France. guulahaas Hitler waxay u sahleen inuu si waadaxa u sheegto inuu yahay mid Alle soo diray. Juun 1941 wuxuu weerar ku qaaday midowgii Sofiyeetka, wuxuuna ciidankiisa ku amray inaysan wax naxariis ah gelin. maxaabiistii midowga Sofiyeetka wuxuu Hitler u diray kaamam halkaasoo 2,600,000 oo qof ay gaajo ugu dhinteen, halka nus milyan kalena lagu laayay. unugyo gaar ah oo si aada loo carbiyey ayuu Hitler diyaarshay si ay u laayaan yuhuudda, maadaama uu aaminsanaa in yuhuuddu tahay kansar adduunka ku dhex jira isla markaana ay tahay in laga jaro. Poland iyo Soviet oo yuhuud fara badan ku noolaayeen ayuu gumaadka yuhuuddu ka bilowday. 1,500,000 oo yuhuuda ayaa sidaas lagu laayay. si uu Hitler u sii wado ciribtirka yuhuudda, wuxuu bilaabay qorshe lagu sii ururinayo caruuraha lixaad kale ee yuhuudda, kuwaasoo guryaha laga soo kaxeeyey lana keenay cusbitaallo gaar ah oo lagu khaarijiyey. 6,000 oo caruur lixaad kale. dadka la khaarijiyey waxaa ku jira caruur indhahala, kuwo dhagahala, qaar waalan, qaar curyaamo ah iyo weliba qaar kale. Diseembar 1941 maxaa dhacay?
wuxuu bilaabay howlgalkiisii ugu dambeeyey ee lagu tirtirayo Yuhuudda. Hitler wuxuu Poland ka dhisay shabakado kaamab ah oo loogu talagalay in Yuhuudda lagu xasuuqo. kaamabkaasoo kala ahaa Belzeta, Zabal, Treblinka, Majdanek iyo Sijift. waxaa la soo ururiyey Yuhuud fara badan oo Yurub dacaladeeda laga keenay, waxaana la keenay Poland. qaybo fara badan oo iyaga ka mid ah ayaa gaajo u dhintay kadib markii lagu xiray kaamab iyo xerooyin Poland ku yaala, iyaga oo cunadiina laga jartay. markii ay isku dayeen inay dabadda u soo baxaanna waxaa ka horyimi ururyo loo carbiyey inay gumaadaan, kuwaas oo markii hore kala saaray iyaga iyo qoysaskooda. qof walbana meel gaara ayaa la geeyey. intaas kadibna waxaa Yuhuudda lagu amray inay dharka iska baxshaan, waxaana lagu aruurshay qolal, iyaga oo sidii inay qubaysanayaan oogada looga qubay gaas kemikaala. cabaadka, baroorta iyo qaylada argagaxa leh ee carruurta, haweenka iyo dadka da'da ah ayaa guud ahaanba ruuxday meeshii. ugu dambeyntii Hitler wuxuu u tafaxaytay sidii uu usoo afjari lahaa geemka. wuxuu Yuhuudda ku eedeeyey inay iyagu ka dambeeyeen, islamarkaana ay iyagu islaynayaan, gumaadka dhexdoodana ay iyagu isku wadaan. sida awgeed wuxuu abuuray nacayb iyo takoor ku aaday Yuhuudda, taasi uu doonayay inuu dadka Jarmalka ahi taageero uga helo si uu mar kale usii wato tirtiridiisa ku aadanayd Yuhuudda. dhammaadkii 1944 waxa uu bilaabay wixii loogu yeeri jiray Holocaust. lix milyan oo Yuhuuda ayuu dilay. Hitler oo isu sheegayay inuu guul gaaray oo reer Yurub cagta mariyey ayaa waxaa taas beeniyey wixii loogu yeeri jiray ciidamada cas, The Red Army. 1945 ciidamada casda waxay fooda saareen Berlin. guushii uu Hitler isugu sheekeynayay waxay noqotay been. saaxiibadiis ayaa mid uga tegay. dadkii yaraa ee u soo haray waxaa ka mid ahaa gabadhii uu diiday inuu guursado, waa Eva Braun, ilaa uu markii dambe guursaday maalin uun ka hor inta aysan labadoodu isdilin. 30 Abriil 1945 Hitler iyo xaaskiisa ayaa halka maalin isqabeen waxay soo xirteen gurigooda. kadibna Hitler wuxuu gacanta u gashay xaaskiisa cyclin capsule, kaasi oo ah kaniin sun ah si ay isu disho. go'aankaasi ay gaareen. kadib maxaa dhacay? madaxa ayuu Hitler xabad isaga dhiftay. isaga oo ku dulacay xaaskiisa, iyaduna suntii ayay u dhimatay. waxaa sidaas ku soo afeeray xukunkii dhagarta ku dhisnaa ee Adolf Hitler. waxaana dhammaaday dagaallo sokeeye iyo weliba dhagaaro lagu dilay dad fara badan oo bini'aadan ah. haddii aad xiisaynaysid barnaamijyo noocan oo kaleeta ah inaanu soo gudbinno, fadlan ha ilaawin inaad barta cas taabatid oo subscribe saartid si ay kuu soo gaaraan muuqaallo aanu halkan maalinle u soo gudbinno. mahadsanidin.